Bismillahirrahmanirrahiim. Waa Somali News oo wax waliba oo faa'iido leh intii soo gudbiyo. Maanta waxaynu ka hadli doonaa cudur aad iyo aad u muhiim ah oo Soomaalideena aad iyo aad ugu soo badan, hase yeeshee daawadiisa iyo weliba la tacaalitaankiisa aynu aad iyo aad ugu liidano. Dhakhaatiirta xataa aysan fikrad weyn aysan ka haysan ayagoo daawooyin kula ordayo. Marka ugu horreysa, dhakhtarka waxaa la rabaa inuu qofka weydiiyo xanuunkiisa waxa sababay oo uu dhaho ama uu ogaan karo haddii qofku uu ku dhaco sokor ku dhaco inuu dhaho ma sokor ayaad cuntaa. Haddii qofku ku dhaco dhiig kar inuu dhaho ma cusbo badan cuntaa, maxaad ku qureecataa. Laakiin Soomaaliyeena inta badan sidaas dhakhaatiirta ma aha, daaweyn ayay horey uga qoraan. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno cudurka xasaasiyadda. Xasaasiyadda waxaan hubaa talooyinkan haddii aad qaadato in dib intaad iigu soo laabato channel-ka aad comment iigu soo bixin doonto oo dhihi doonto waan ka caafimaaday, khayr Allah ku siiyo walaal. Ugu horreyntii, xasaasiyadda laba nooc ayaa loo qaybiyaa: xasaasiyad gudaha ah iyo xasaasiyad banaanka ah. Wayna kala daran yihiin labadaas xasaasiyadood. Haddaan ku hormarno xasaasiyadda banaanka ah. Xasaasiyadda banaanka ah waa in qofka jirkiisa uu ka muuqdo barar, nabro gaduudan ama casaan ah, nabro burburan, iyo weliba astaan weliba oo jirkaaga kore ka muuqan karto. Xasaasiyadda waxay noqon kartaa inay indhaha, qoorta, dhagaha, sanka barar aad ka dareento adigoo ama ayadoo sababayso cuntooyinka qaar ama cuntooyinka xasaasiyadda leh oo dhan. Si guud ayay uga wada siman yihiin, ama ha ahaato xasaasiyadda gudaha ama ha ahaato xasaasiyadda banaanka. Si guud ayaan rabaa inaan cuntooyinkaas idinkaga waaniyo adinkoo iska joojinaya gebi ahaantoodba. Xasaasiyadda inta badan dadka waxay xasaasiyad ku tilmaamaan xubinta taranka oo waxyaabahaas ama ay ka dareemaan. Taas xasaasiyad maaha, kuwaas waa infection ama caabuq ku dhaco. Waayo caabuqa si gooni ah ayaa loo daaweeyaa. Xasaasiyad iyo cunto aad cuntayna sabab uma noqon karto. Xasaasiyadda waxaa ku soo hartay gudaha. Xasaasiyadda gudaha haddii aan kala qaadno, xasaasiyad indhaha oo qofka guduuto ama indhaha oo aad iyo aad u xanuuno, ilin ka timaado, afka ama af burburka waxay dhahaan, ama af go'go'a, ama waxay dhahaan afka carrabka oo nabra ka soo baxo. Soomaalida waxay yiraahdeen shimbiro ayay yiraahdaan. Dhuunta oo ku guduudato mise nabra ay ka soo baxaan. Kuwaasna waxaa la yiraahdaa xasaasiyadda gudaha. Si guud cuntooyinka ayaan rabaa inaan idinla wadaago xasaasiyadda ah oo rabo inaad iska joojisaan. Cuntada ugu horreysa waa malayga nooc walba uu yahay. Xasaasiyad haddii aad qabto nooc walba ay tahay, malayga u dhawaanin, caafimaadkaada kuma jiro. Waxaa laga yaabaa cuntooyinka aan sheegi doono inaad istiraahdo Somali News waxaa u soo dhigateen caafimaadkeena mise waxyaabihii nafaqada aan ka helaynay. Haddii adigu xasaasiyad aad qabto, waxyaabahaas inaad iska daysid in xasaasiyadda mar waliba ay kugu kacdo, labadaas mid ayaad dooranaysaa. Lambar laba, waxaad iska ilaalinaysaa ukunta iyo digaaga. Wax waliba digaaga ka yimaado, ha ahaado ukun, ha ahaado hilibkeeda, ha ahaado maraqeeda, waad ka fogaanaysaa. Shayga saddexaad ood ka fogaanayso waxaa waayo digirta. Digirta ayadana xasaasiyad ayay kicisaa, waad isaga fogaanaysaa gebi ahaanteed. Ha ahaato digirta cad, ha ahaato digirta cagaaran, midda gaduudan, nooc waliba digirta ay tahay ayadana waad ka fogaanaysaa. Sidoo kale waxaad ka fogaanaysaa basbaaska. Basbaaska oo ka mid ah waxyaabaha xasaasiyadda aad iyo aad u kiciyo. Soomaalideena basbaaska aad iyo aad ayay u isticmaalaan, kuwaasoo caafimaadkooda aanan ka taxadaraynin. Ayagoo xasaasiyad qaba iyo basbaas intay cunaan, indhaha ha ahaado tii gudaha iyo tii banaanka ay ku kicisaa. Sidoo kale waxaad ka fogaanaysaa xulbada. Xulbada waa xasaasiyad kiciye aan inta badan la ogsooneyn, dadka qaarna aysan ogeyn in xasaasiyadda ay kiciso xulbada. Sidoo kale waxaad ka fogaanaysaa wax waliba oo afkaaga dhaawici karo ama u keeni karo inuu ruugitaankooda u adkaado, sida
Daangada xasaasiyadda waxay ku kicisaa nooca afka. Haddii af burbur aad qabto oo daango aad cunto, afkaaga waxaa laga yaabaa inuu dhaawac. Daangada sideen ognahay waxay leedahay xabshaan bay leedahay, waxay leedahay mudco kolkii aad rugto kaleeto in ilkaha mudcaha inta badan ilkaha ma uu budeeyo laakiin wuxuu ka dhigaa wuu yara jilcaa. Markaas in ilkahaaga mudcihii uu yeelay ay kaa gasho meelihii afkaaga u liidanaa in xasaasiyad uu ku kiciyo, sidaasna xasaasiyad ay kugu kacdo. Sidoo kale waxaa xasaasiyad kiciyo oo aynu ka war haynin laakiin hadda aynu soo ogaanay cuntooyinka la qamiriyo weliba sida zaidka ah, sida cuntooyinka lagu daro leebatada xasaasiyad ayay kicisaa. Inaad iska ilaalisaan ayaan rajeynayaa. Weliba waxay kicisaa nooca caloosha iyo nooca dhuunta ayay kicisaa xasaasiyadda leebatada. Sidoo kale waxaa la soo ogaaday xasaasiyadda inay kiciso waxyaabaha qabowga oo aadka u qabow, maxaa yeelay afkaagu wuxuu u nugul yahay caabuqa. Marka haddii caabuqa u nugul yahay qabowga daran, afkaagu waa waxyeeleynayaa, dhuuntaadana way waxyeeleynaysaa. Iska ilaali. Waa Somali News. Intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Channel-ka haddii aad ku cusub subscribe saar insha Allah. Wax waliba oo caafimaadkan u wanaagsan ayaan idin la wadaagi doonaa.